maalmahan oo dhan ayaan isku mashquulsanayn horta cid la hadlay waa dhalinyarada wixii aan gooni isugu sheegi lahayna inaan annagoo wada jirna hal goob isugu sheegano saas ayaana go'aansanay waxaan wadnaa waa baaq nabadeed waxaan wadnaa colaadda yar ee aan macnaha lahayn ee taagan in biyo lagu shubaan rabnaa odayaashana waa isla soo qaadanay waxaan rabnaa odayaashaanun hadda keligood wax ma qaban karaan wiilashoodu yaa tihiine nimankii dhibka ka xigsan lahaa tihiine nimankii dhib ku hormari lahaa ma tihiin horta nabaddan soo qaadanay inaad nala qaadatiin aan rabnaa maanta wixii ka dambeeya shalay wixii xumaanaho shalay dhacay saasay tahay hadda malihi in la isku haysto inaan la isku haysana ma sheegi doonee waxaan shirkad ku nahay hadda wixii ka dambeeya khayrka iyo wanaagga wada sameeyno saas shirkad ma ku nahay waxa la yiraahdaa qofka bini aadamka oo markasta ka caroodo waxa uu san jeclayn weligiis naftiisa ma xasisho ma degto wax kasta oo ku dhiba hadaad ka xanaaqdo ibidka deganaan arki maysid bini aadamkana weynaantiisa iyo karaamadiisa waxa lagu qiyaasbaa hadban naxariista uu naxariisto qofka xaqiisa ku xadgudba adigu bini wax karaamada ma lihid haddii qofkii ku dulmiyo aad dulmi ilaahay waa ogol yahay qofka ina jizadiis wax intuu ku geysta laakiin waxa ka fiican inaad u samirto akhyaari dhalinyaroy sharta yani wanaaga min jihooda inaad noqotaan lugaha wanaaga iyo gacmaha wanaaga inaad noqotaan la idinka rabaa madaxda sharta inaad noqotiin la idinka rabo dhalinyaroy cimrigiinu iyo waqtigiinu iyo xooggiinu waa muhiim meel ilaaha ku qasaarinina waxa ala jeeyta idii sheegay oo gudoomiye shuuta idii sheegay oo waxa la idinka rajeynaayo cududiina iyo xooggiina iyo maskaxdiina Soomaali inaad karaamo u keentaan oo ku xoreysaan hadda koorna waa ku xoreyseen waa ogtihiin shaqadii qabyada ahayd la rabaa inaad dhameystirtiin inaad dadka ku soo gudan noqotiin oo idinku ku soo gudan noqotiin lama rabo cadowgu inuu idinka aqli badiyo lama rabo istiraatiijiyada ama xigmadaha oo askariga waxa kamid ah jananka ugu fiican waa jananka guuleysta asagoo hal xabad ridin macnaheedu xoolo ka bixin xoog ka bixin waqti ka bixin muxuu sameynaa cadowgiisu iska horkeena kanu been u soo sheega kanu u sheega waa isku dhifana waa ka dhaxbaxa ayagaas dilaa korkoodu sigaar ku caba oo furfurina markay isbaabashaan cashuurta keenuu leh sidii shalay ergi leedinka qaadi jiray rabaan leedinka qaado waliba doqonnimadeena xooggiina ayadoo la isticmaalayo hadda ka hor meeshaan isugu maanay geedkii geedu ahay ma aqaan geed barakaysan ahay waa ballanay ya melma ontarkaas oo ahay Sooma Ali Jeyti aniga Ibrahim Abdullaahi iyo Muumin Eelay iyo Maxaasi meelahaasaan joogno muddo lagu murmaayay maqoor hal xoreey iyo tardahal aado iyo nimanka dhinacaan jira qabay qaab gubee nimankaas ayagu xabiis ma dhaamaan lama aadayo bishaarafi iyo reey ku jiraan Muumin Eelay indhahay waraa mid sheegaha indhaha xirtee ratiga maaragta markuu geela waa taqaana webiga markii lagu gudbinayo waa cabsada Sooma indhaha laga xiraa kadib baa buundada la gudbiyaa meeshaas isku tuuraan dhahan wax Ilaahay naga siiyaba waa isku soo tuureen aniga Ali Jeyti dabageediina waa ka daba imaan waa idila hadlay aniga dabageed waana la xataan idiri Sooma gadaal uma noqon karno hadii warkaas rumo warkaas ceebtaas ma ka tiraa masana la kama tiraay waa la idinka tiraan ku ballan idinku macaabayna maalintaas waxay heedaan u maleeyeen in khamiisteedii meydaan meeshan shabaab tuugaha aad ku ciyaaraysan meydala taan leedii cafi in shabaab idii cafi meydka ku meeshan ku ciyaaraysan meydala taa xisaabtu waa ugu jirtaa horta idinkana xisaabta horta heedo ku jirto shabaab wuxuu annaga madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ali Jeyti annaga dadka macawisleeda oo oolayaan ku jirnaa qofka soo Soomaaliyeed iyo qofka soo ajnabi waxay dhahaan iyo shabaabka ku jira macawisleeda waa laga shalaynaa laga mashalaynaa waa gacmihii dalkan xoreey lahaayeen taagnayn ma waa laga shalaynaa ayaguna waa isdilayaan oo diriska waa dilayaan oo dawladdu waa dilayaan oo biri shabaabka ka cilinaysan ordaan saasaana la ku dooday ma doodaas runa ma sateena runa horta waxa meelaha ka dhacay waxa warkaas anagana la ku lahaay niman u marqaati ka ogtay horta ee warkaas halayda warkaas nimayo Ilaahay ku dhaariyay naga dhaqa xumaantaas naga dhaqa waana ceeb sidiisaba qof sokeeya awoodaada inaad isticmaasho qof islaama awoodaada inaad isticmaasho qof diriskaaga
inuu kaa soo horso waayo waa nasiib darro weyn waayo oo inta meesha darooga cuntida wiilal yariis intay baxaan bagac moontada ku sii qoriga soo qaado war qoriga ninkii soo qaata tarta oo meesha fadhina ama guriga nabad ku seexana soo carari ma soo doqonnimo ma ilaah baan idinku dhaariyay nabadan wadnaa nabadaas nala qaata hadda kadibna hadii ilaah yiraahdo ciidan isku dhafa odayaal isku dhafa siyaasad isku dhafa maamul isku dhafa la dhisi doonaa oo waxba kala lahayn oo ninkii xumaan laga cili waayo ayagooda jir u qabta qolqaas loo xisi joona hadda kadib ma jir dawladuna qayb ka noqon doonta wadooyinka waa la fura idinku wadooyinka waxa dantiina ku jirta inaad xamar u safri kartaan oo erigiina safrisa kartaan oo badarkiina si nabada oo idinku imaan karo oo si nabada ceelasha ku tii kartaan waa la og yahay nimayahow akhyaarta xagga jirta maalinta wada hadlay wixii reer annaga hadii xagayna roob ka doo ciidana waa wada aaday in roobkaas ay cabaanay daaqaanay rabaan annaguna inta hadii roob ka doo 5 sano meesha abaartaana ma soo aadi karno waajib miya xaq miya in qofka markuu wax haystan adigu aad la cunto markaad adigu haysatada aad huyur iska tiraa maxaqa waxaas doqonnimada iska dhaaf ilaahay ka cabsadee waxaas doqonnimo waay dirisniyo ma ila iska dhaafa hadday jirtana hal la joojiyo warkaas hadduu jirina ma jiro anagu hadda idin kor saarmayno laakiin doodaha qaarkood asaas waana taqaaniin inay inta in la aado iyo inta in la soo aado xagga in la aado badan Sooma meesha u socotiin nabad inaad ka shaqaysiin Sooma oo dadkooda aad wanaag ka kasbataan qoriga hal la dhigo colaad hal la dhigo wixii sharahay khayr iyo wanaag lagu bedelo walaalnimaha lagu bedelo annaguna odayaasha dadaalkooda in nabad ka shaqeynayna kaabayna waxa alla wixii nooga baahdaan diyaaran u nahay waan u duceynaynaa waxaynu duco kale ma ahan waxa rabnaa ficil waxayna ficil iyo amal inaan ku qadarno khiyaaray dhalinyaradii waddankaana tihiin inaad isdishiin ma rabno nolol xumo inaad ku noolaataan ma rabno inaad iswalaashataan aan rabnaa colaad dhaxdiina ma rabno qof aan ka yeelanayna ma jirto inay waxay rabtaan inta sameystaan ay qoriga ay qofka walaalkiis ka soo diso gurigooda gadaal loo soo gasho qof aan ka yeelanayna ma jirto khiyaaray isdijiya shaqadii idin taale oo qabyada noo aheeday oo shabaab aheeday ma iska dhaafnaa ama lihii ama iska dhaafee ma soo wada dhameystirnaa annaga waxaan ku ballanay meesha markaan ku kala tagayna col iyo nabadba idinka tagi mayno hadday nabad tahan waa idin joogaynaa oo waliba magaaladan in nal la gasho oo ceelasheeda la hagaajiyo oo ceelal la qodo oo iskoolaad loo dhiso aan ka shaqeynayna annagaana la ka yaqaanaa idinku nabad ma ka shaqeyn kartiin yaa 3 bilood oo nabada haddaad keentaan iskoolkoo hagaagsan ceelashoo la qodo beledkaan oo nal leh isbitaal inta baana laga yaqaanaa war waxaas annagu ma haynee dawladda haysee dawladdu dad isdilaysa may waxaas u keeni kartaa dhulkaan hadda deegaanada aan ka soo jeedno soo meeshii centerka ama ubuucda u aheeday ma ahan kacdoonka iyo shabaab la dirka soo ma ahayn annagu nabadda inaan ka faa'iidna ma aheed marka nabad helna inaan nabaddii col ku bedelno miya inaan ka faa'iidna annagaana la ka yaqaanaa idinku ma sugi kartaa horta mooriyaan dabo isbaara dhigani wallahi billahi taala inaan la yeelay shaqadaasna anaa la iga rabaa inaan mooriyaan ka qabto wadanka oday dambe xitaa la saabma war ila Soomaaliyo dhan jidkii Soomaaliyo dhisato adduun dhisay waa ka go'an tahay meeshaanay martaa Soomaaliyo dhan martaa wallahi oo billahi taala nin walaalkiis jid u galay oo walaalkiis dilay inuu san nasrnahayn halgan umadeena oo san qayb qaadan qoryaha waa galana meelahan laga soo gatay kadib guryahan la joogan idinku marka dagaalka jirtaan isbaari dhigtaa ma qaad dariiq waa anaana idin la qabanaay shaqadaas waa idin ka qabanayna ilaahay idinku dhaariye Soomaali sharafaad ku leediin marka Soomaali adduunka ba sharaf aad ku leediin bugaagta adduunka la idinku qoraaye dariskiin hadaa sharaf ka yeelo waysan ka waram dadka ida dhaxmaraayo masaafirka hadaa sharaf ku yeelayso kar waan in leedii duceeyaa la rabaa ina beledkan inta baawurta la dhigto maqaayadahan wax laga gato oo dukaamakan laga aradbaxo oo gabdhahan qurquruxda badanna ka guursado oo sharafaad noo yeesheen sharaftii hore u wada haduuganine waana mahadsantiin odayaashan rabaa inaan ku soo wareejiyo nabad ku dhawaaqa nabadaasaan idin xoojinayna hadii la yiraahdo